wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka wararka Soomaalida waa 26 bisha 10 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ahlu sunna oo soo bandhigtay ciidan iyo hub culus oo ay isaga difaacaysa dawladda federaalka oo duulaan ku soo qaaday magaalada Dhuusamareeb odayaal iyo waxgarad u istaagay qaboojinta xiisada colaadeed ee ka taagan magaalada Dhuusamareeb iyo shirar iska soo horjeeda oo ka socda magaaladaasi Dani oo walaalkiisa ku wareejinaya mashaariicda imaaraadka iyo beelaha bari oo ka hor yimid iyo mid ka saxan hadallada farmaajo iyo ambassador Kayle MC Carter ee kiiska dacwadda badda waa warbixin xogo muhiim ah xambaarsan oo halkan idinku soo gudbin doono intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaa xalay ka dhacay kulamo kala duwan oo ay garwadeen ka yihiin odayaasha dhaqanka isla markaana lagu dhexdhexaadinayo dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta ururka Ahlu Sunna odayaasha dhaqanka ayaa la kulmay labada dhinac waxaana ay sheegeen in tabashooyinka ay qabaan xalin doonaan isla markaana aan loo baahnayn in xiisad laga dhex abuuro bulshada magaalada Dhuusamareeb dawladda Soomaaliya oo dadaal ugu jirta sidii uu ku shaqo bilaabi lahaa gudiga ay magacooday wasaaradda arrimaha gudaha oo shalay gudoon doortay isla markaana Ahlu Sunna ay ka soo horjeedo ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyay waxaana inta badan ciidamo dheeraad ah la geeyay meelaha ay joogaan Ahlu Sunna iyo madaxdooda ciidanka Ahlu Sunna ayaa shalay la wareegay xarumo muhiim ah oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb taasi oo cabsi weyn ku abuurtay bulshada magaaladaasi dhanka kalena Sheekh Shaakir iyo Macalin Maxamuud hogaamiyaha Ahlu Sunna ayaa shalay gelinkii dambe dowlatus ciidan ka sameeyay Dhuusamareeb xilli gobolka Galgaduud laga dareemayo jawi colaadeed Sheekh Shaakir oo la hadlayay ciidanka ayaa u sheegay inay diyaar garoobaan isla markaana daqiiqad kasta heegan ugu jiraan sidii shacabka iyo magaalada Dhuusamareeb ay u difaaci lahaayeen dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan ayaa laga dareemaya magaalada Dhuusamareeb iyadoo magaalada lagu arkayo ciidan aad u hubeysan iyo gaadiid dagaal kuwaas oo kala taabacsan Ahlu Sunna iyo dawladda federaalka ciidanka 21 Oktoobar ee xooga dalka Soomaaliyeed iyo gaadiid dagaal ayaa gudaha u galay magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo sii kiciyay xiisada colaadeed ee ka taagan magaalada Dhuusamareeb odayaal iyo waxgarad ayaa u istaagay sidii ay u qaboojin lahaayeen xiisada ka taagan magaaladaasi dhinaca kalena madaxweyne Dani ayaa walaalkiisa ku wareejinaya mashaariicda imaaraadka iyo beelaha bari oo shir ku yeeshay magaalada Boosaaso ayaa ka hor yimid imaaraadka carabta ayaa lumiyay mid ka mid ah beelaha ugu muhiimsan gobolka bari udub dhexaadna u ah joogitaankooda deegaanada Puntland xilli laga cabsi qabo colaad sokeeye xiisad adag ayaa ka taagan deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka bari intii uu talada la wareegay madaxweyne Dani madaxweynaha ayaa u muuqday inuu cadaadis xoogan ku saaray imaaraadka inay la shaqeystaan qoyskiisa dhanka horumarinta mashaariicda taas oo meesha ka saaraysa shirkadda ay lahaayeen ganacsato u badan reer bari oo ay ugu muhiimsanaayeen beelaha Cali Saleebaan iyada oo walaac weyn laga muujinayo loona fasiran karo inay tahay iska horkeenida qaar ka mid ah beelaha Puntland imaaraadka carabta ayaa luminaya beelaha gobolka bari gaar ahaan Cali Saleebaan oo udub dhexaad u ahaa joogitaankooda gobolka 10kii sano ee la soo dhaafay maadaama beeshaasi gacan saar weyn ay la lahayd imaaraadka carabta iyagoo kala shaqeyn jiray mashaariicda horumarinta iyo fududeynta in mashruuca PMBF laga hirgeliyo deegaanada Puntland waxaa xusid mudan in laba suldaan oo kamid ah beelaha Cali Saleebaan si xaq dara ah loo dilay muddadii lagu jiray hirgelinta mashaariicda imaaraadka wixii ka dambeeyay markii xilka loo doortay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani waxa uu bilaabay inuu imaaraadka carabta kala shaqeeyo iska horkeenida beelaha Puntland madaxweyne Dani ayaa si weyn u daneynaya in xubno ka mid ah qoyskiisa lagu wareejiyo mashaariicda ay horey gacanta ugu hayeen xubno ka soo jeeda beesha Cali Saleebaan madaxweyne Dani ayaa ka dhaadhiciyay imaaraadka carabta in walaalkiisa oo lagu magacaabo Xasan Dani lagu wareejiyo dhammaan mashaariicda ay ka wadaan deegaanada Puntland taas oo bedelkeeda madaxweynaha ayaa u ballan qaaday imaaraadka inuu qalanku ugu duugi doono saxiixida dan kasta oo ay ka leeyihiin Puntland beelaha dega gobolada Puntland waxaa muuqata inay soo fahmayaan qiyaanada uu la damacsan yahay imaaraadka carabtu dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya siyaasiyiin dhaqaale doon ah dhinaca kale waxaa xalay ka dhacay magaalada Boosaaso shir ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada beelaha Cali Saleebaan shirkaas waxaa looga arinsaday sida laga yeelayo duulaanka madaxweyne Dani ee ku
ku wajahan qaar ka mid ah beelihii wax ka dhistay Puntland. Shirka waxaa ka soo baxay in loo istaago sidii wax looga qaban lahaa hogaaminta qaldan ee madaxweyne Siciid Dani ee ka wada deegaanada Puntland. hab dhaqanka cusub ee Dani iyo Imaaraadka la soo baxeen ee ah iska horkeenida beelaha waxa uu keeni karaa burbur ku yimaada mashruuc kala duwan oo Puntland waxtar u lahaa sida kan BMBF iyo kuwa kale. Imaaraadka Carabta ujeedkoodu waa inay Puntland ka dhigtaan saldhig lagala dagaalamo dowladda iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed iyagoo madaxda Puntland ku indhasarcaadinaya dhaqaale iyo mashaariic aan muhiimad lahayn. geesa kalena walaac ayaa ku abuurmay dad badan oo ku qanacsan madaxda qaranka iyo siday wax u socdaan kadib markii la arkay qoraalka jariirada The Nation oo soo xiganaysa safiirka Mareykanka ee dalka Kenya kaas oo sheegay kulan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya inuu kala hadlay sidii ay dowladda Soomaaliya uga laaban lahayd dacwadda muranka dhinaca badda ee Soomaaliya kala dhaxeeya Kenya kaas oo maxkamadda yaala. safiirka ayaa jariirada Nation u sheegay sida ay dowladda Mareykanka u doonayso in muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya si hoos ah loogu dhameeyo. waxaana uu safiirka intaa ku daray in madaxweyne Farmaajo iyo Kenyatta ay dhameeyeen khilaafka dhinaca badda ay isku hayaan si meel looga soo wada jeeso dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. dadka walaacsan ayaa doonaya si ay u qancaan in madaxda qaranka sida madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ay kala hadlaan hadalka ka soo yeeray safiirka Mareykanka ee Kenya, waxayna dadkaasi dhaliileen oo ay saluugeen naqdinta ka soo yeertay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo isagu eed aanay lahayn kala dul dhacay jariirada safiirka wareysatay. waxaa arintaasi kiciyay oo shacabka walaac ku sii abuuray dad badan oo isugu jira kuwa dana gaar ah ka leh arintan iyo kuwa kale oo daacad ka tahay oo cambaareen iyo eed aan loo meeldayin kala dul dhacay madaxda dalka siiba madaxweynaha oo ka doonayaan inuu markiiba gaashaanka u daruuro qoraalka safiirka Mareykanka oo sheegay inuu kula kulmay magaalada Muqdisho. marka loo dhabagalo imaatinka safiirka Mareykanka ee Kenya ee magaalada Muqdisho iyo la kulanka madaxweynaha Soomaaliya oo ku cadaadiyay inuu ogolaado in kiiska badda ee yaala maxkamadda adduunka lagala soo laabto si labada dowladood Soomaaliya iyo Kenya uga wada hadlaan si hoose. waxaa laga joogaa 3 bil waxaana ay ku beegnay July 2019 waxaana xusid mudan in waraysiga safiirka aanay ku jirin in madaxweyne Farmaajo qorshihiisa ka ogolaaday inuu ka diiday labadana. waxaa arintaasi isku fuuqsaday oo cadeeyay mowqifka dowladda oo wax kama jiraan ku tilmaamay hadalkii safiirka khudbadii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ka jeediyay bil ka hor fadhiga golaha guud ee loo dhan yahay taas oo ku sheegay inaanay marnaba ogolaanin in si hoose muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya looga wada hadlo. waxaana intaa ku daray madaxweyne Farmaajo in Soomaaliya ay ku qanacsan tahay go'aanka maxkamadda kiiska hadda horyaala kaas oo la ogyahay xitaa inaanu racfaan lahayn. dadka waxaa dhiiga ku kiciyay oo madaxoodii majaha u rogay oo shaki badan ku dhaliyay waraysiga safiirka oo daraad ku beegnaa waxaana ay u qaateen in kulanka safiirka Mareykanka ee Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya ay waraysiga u yihiin maalmo ku dhow. waxaa shaki bax ku filan socdaalkii horaantii bishii Maars ee sanadkan ee Addis Ababa uu ku tagay madaxweynaha Soomaaliya ee kulanka kula qaatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya markiiba waxaa madaxweynaha loo soo kaxeeyay Kenya si ay u wada hadlaan Kenyatta oo ay u xaliyaan khilaafka hareeyay labada dal. madaxweynaha Soomaaliya waxa uu madashaasi ku ogolaaday inuu Uhuru kala hadlayo wax walba oo labada dal isku hayaan oo uu xitaa tanaasul ka sameynayo wax badan marka laga reebo kiiska badda oo hadda yaala waxa loogu yeero maxkamadda adduunka. marka laga yimaado isjiidka siyaasiyiinta Soomaalida oo midba midka kale karkaarka doonaya inuu weydaariyo ka saara saaxadda siyaasadda Soomaaliya waxaa maragma doontaa in kiiska muranka badda ee Kenya nagala dhaxeeyo door fiican oo Soomaalinimo ah laga ciyaaray. mas'uuliyadda ugu weyn waxay hadda saaran tahay dowladda hadda shaqeysay oo madaxda u yahay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. kiiska maxkamadda waa gabagabo waxaa dhiman hal dhageyso oo ku beegan June sanadka 2020 labada wadan Soomaaliya iyo Kenya kiiba waxaa qareenadooda la dhageysan doonaa 4 saacadood. Agoostana waxaa la quurdareynayaa inuu go'aanka kama dambaysa ay soo baxo gabagabadii. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed walaaca joojiya dowladnimo ayaa idin deeqda ee iska karow kan leexda ah. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga intaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino. waana mahadsantihiin.